barnaamijkeeni maxaa xiisaleh toddobaadka Salmar barnaamijka toddobaadkan waxaan ku fiiri doonaa isqabqabsiga iyo muranka xooggan ee Kenya ay ku doonayso inay ku qaadato badda iyo dacwadda 15 bishan ka dhici doonta magaalada Hague iyadoo toddobada bisha ay maanta ku jirno maalmaha axada tahay ayaa waxaa la filayaa in maalinta bisha 15 ay ka bilaabato magaalada Hague ee xarunta dalka Netherlands dhageysiga dacwadda ay Kenya badda kula haysato Soomaaliya taasoo maalmihii ugu dambeeyay ay ku gadaanayeen hadallada kala duwan iyo handadaada xoogan labada dal ee Kenya iyo Soomaaliya ayaa cilaaqaadkoodu xumaaday isla markaana godeer ku dhacay kolkii Kenya ay isku listay sidii kasta oo ay ku heli karto inay saameyn ku yeelato arrimaha gudaha ee Soomaaliya iyo sidoo kale arrimaha badda ee dalka Soomaaliya Kenya ayaa muranka bilowday tan iyo sanadkii 2009 kadib markii taariikh cusub ay soo rogantay taasoo horay aysan ummadda Soomaaliyeed ee aqoonta lahaa isla markaana dawladda iyo arrimaha ka warhayay waagaas aysan horeyna u maqal dibna aysan u maqal ka hor 2009 Kenya iyo Soomaaliya oo bad isku haystay waxa ugu horeeyay saxiix ka dhacay magaalada Nairobi ee dalka Kenya kaasoo wasiirkii wasaaradda qorsheynta ee Soomaaliya mudane Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame iyo wasiirkii arrimaha dibadda dalka Kenya Moses Wetangula ay ku dhawaaqeen madal ku taal magaalada Nairobi in ay labada dal ay ku heshiiyeen ama ay kala saxdeen heshiiska loo yaqaan Memorandum of Understanding heshiiskan oo ah markaas isafgarad ayaa waxa uu laynka diblomaasiyadda iyo luqadda Ingiriiska kaga jira isafgarad iyo heshiis labada dal ayaa ku heshiiyay inay koow isku haystaan bad iyo laba inay ka wada hadlayaan arintaas ayaa dhulgariir ku noqotay shacabka Soomaaliyeed oo markaas dawladoodu ay taagtarneed inkastoo dawladku meel gaar ay jirtay haddana dalka waxa ka soconaya dagaalada culus magaalada Muqdisho badankeeda waxa gacanta ku hayay ururka Al-Shabaab iyo sidoo kale ururkii Xisbul Islaam ee dhanka kalena maamul goboleedyada dalka waxa ka jiray Puntland iyaduna ay sidoo kale ay jirtay Somaliland oo gaar iyadoo u sheeganaysay mar walba ilaa haddana u taagan inay gaar uga goday dalka intiisa kale waxaana markaas jiray cidda kaliya si sharciyad arintaas ugu horimaa kareysay loo arki karay baarlamaanka dalka Soomaaliya xilligaasi qaraarkii loo yaqaanay dhaxal dawr ayaa ka dhidiyay kaasoo inta badan xubnihii baarlamaanka ee Soomaaliyeed ay si xoogan uga hortageen waxaa sidoo kale jiray olole aad u xoogan oo ay bilaabeen qaar kamid ah warbaahinta Soomaaliyeed gaar ahaan website-ka caanka ah ee Soomaaliyeed Somali Talk kaasoo khubaro Soomaaliyeed oo dhalinyaro iyo rag aqoon-yahan oo cilmiga badda bartay ee qalinka isla dul taagay isla markaana ay ku sameeyeen baxthi iyo baaritaan halka arintu ka soo askumatay dhammaan boqolaal qoraal oo ay qoreen sharci dejiyaal sareeyo oo la xiriireen baaritaano xoogan ayay waxa ay ku ogaadeen in gabi ahaanba aysan jiri jirin bad ay Kenya dhinaca kaga maqan Soomaaliya isla markaana ay tahay hanqaltaag iyo handadaad ka faa'iideysi xoogan oo dalka Soomaaliya ay arintaasi ay Kenya la damacday dhanka kalena xogiyii guud ee qaramada midoobay Kofi Annan ayaa la helay xog uu sheegay muddo ka horeysa sanad xilligaasi iyadoo dabayaaqadii sanadkii 2008 markii dalkaasi 2007 doorashadii lagu murmay madaxweyne Mwai Kibaki iyo ninka leeyahay markaasi ninka haatan isaguna mar dambe la murmay isla Uhuru Kenyatta ee la yiraahdo Raila Odinga uu dhaxdhaxaadinayay ayuu ogaaday qorshayaal ay Kenya hindisay kaasoo ay ku doonaysay in ciidamada u dirto gudaha Soomaaliya Kenya sidoo kalena ay dabcan aysan ka marnayn arinta badda waagaas ayuu digniin adag uu ka siiyay dalka Kenya in ay masiibo iyo darismo ku dameeyaan doonaan haddii ay farageliyaan Soomaaliya oo ay u arki karaan inay ka bursan karaan maadaama dalka Soomaaliya dawladeedu ay jilicsan tahay si kastaba noqotee madaxweynaha xilligaas Shariif Sheekh Axmed oo la weydiiyay arinta ayaa sheegay inuusan xog iyo xaltoona ka haynin isla markaana uusan la soconin taariikhda badda iyo waliba heshiiskaasi ra'iisul wasaarihii xilligaas isagana Umar Cabdirashiid Cali Sharmaark ayaa ishaaray in uu wax ka ogaa isaga iyo madaxweynaha iyo dhamaantood oo kaliya aysan wasiirka wasaaradda qorsheynta uusan ku kaliyeysan arintaasi si kastaba ha noqotee heshiiskaasi uu dhacay isla markaana olole xoogan ayaa shacabka Soomaaliyeed kaga hortageen ugu badnaadeen dhalinyaradii loo yaqaanay dhalinyaradii 5+ ee shanta ahayd kuwaasoo dalalka Canada Mareykanka iyo dalka Britania ku kala noolaa oo ah dhalinyaro Soomaaliyeed oo aad ugu halgamay inay arintaasi ka daba tagaan kumanaan qoraal ayay u kala direen dunida isla markaana waxay sidoo kale ka dhidiyeen arrimo kale shirkad yiraahdo Somo Oil oo 5 sanadood kadib xilligaas iyaduna soo naascadaatay ayaa ugu dambeyntii iyaduna gacanta la soo gashay badda taasoo la aaminsan yahay inay ku riixday dawladii hore iyo xubno ay ku agdhawaayeen inay badda geeyaan ama muranka badda ay geeyaan dacwadda The Hague maxkamadda The Hague ee dacwadaha dhinaca ee loo yaqaan maxkamadda ICJ haddaba arrimahaas oo dhan oo jira iyo qadiyadkaas oo isgarab saaran ugu dambeyntii waxa ay ka soo baxay laynka dhinaca Kenya dalal iyaguna dabada ka riixayay oo doonayay in badda Soomaaliya la dhacaan dalka Norway ayaa ugu dambeyntii ku qanacay in badda ay Soomaaliya leedahay isla markaana xataa haddii uu doonayo inuu maalgashi iyo ceel qodis uu ka bilaabo ay tahay inuu safka Soomaaliya soo galo ama se ugu yaraan uu dhaxdhaxaad ka noqdo waa dalalka markaasi madaxa u geliyay Kenya isla markaana u sheegay in halkaasi ay ku duugan yihiin playin cubic oo markaasi shidaal ah taasoo haddii ay Kenya baddaasi meersato ay si fudud u heli karto inay ku qaanbaxdo Kenya ayaa waxaa kalarka haysta dawladda dalkaasi Shiine oo lacag ku dhow 80 bilyan oo dollar oo maalgashi ku leh dalka Kenya waa dal qaamaysan sidoo kalena waa
dal ay ka jirto musuqmaasuq aad u xoogan walow uu yahay dal kamid ah dalalka ugu horumarsan bartamaha iyo bariga Afrika. Haddaba maalmaha soo socda ayaa waxa uu noqonayaa toddobaadka is aragga xoogan ee dalalka Kenya iyo markaasi Soomaaliya. Haddaba tallaabooyinka ugu waaweyn ee shacabka Soomaaliyeed laga rabo iyo kan dawladda laga rabo ayaa u eg mid kala duwan. Dadka Soomaaliyeed ayaa laga doonayaa inay miisaankooda isugu geeyaan inay tagaan agagaarka daarta isla markaana gaar ahaan dalalka ka agdhow dalka Netherlands ee ka mid yihiin dalalka Faransiiska, dalalka Belgium iyo dalalka kale ee Jarmalka iyo meelaha kale ka imaan karaan oo dhan inay maalintaasi u huraan ama 2 maalmood oo ay huraan 3 maalmood ama 2 maalmood oo u huraan dalkooda isla markaana ay maxkamadda hadii loo ogol yahay ay buuxiyaan hadii loo diido la ajliga xanuunka faafaha daran COVID-19 kana ay bannaanbax iyo waliba script tag iyo diilo dhis ay markaasi ugu niyad dhisaan dacwad oogayaasha iyo difaacayaasha badda iyo madaxda Soomaaliyeed halkaas tagi doona ay ma huraan tahay arinta kale ku socota dawladda iyo waliba mucaaradka iyo waliba siyaasiyiinta Soomaaliyeed waxay adag isla markaana aan loo baahnayn inuu sii socdo khalkhalgelinta gudaha laga wado dawladda federaalka Soomaaliya inkasta oo siyaasad kasta la isku hayo maalin laga heshiiyo haddana waxa muhiim ah marka ay noqoto dhicinta dalka in masal laga wada noqdo qof kasta Soomaaliyana uu ka dhidiyo cid kasta oo isku dayaysa in ay doonayso in ay khalkhal sii geliso siyaasadda Soomaaliya ka hor intan xilligaasi la gaarin waxa ay hiil muuqda iyo mid dadban boo noqon kartaa dacwad ay Kenya ku guuleysato ama inay Kenya ay markaasi ay ka idaad hesho niyadda madaxda Soomaaliyeed ee ka qayb galaya dhageysigaas iyadoo sidoo kale ay jiraan in ay Kenya ay dalbatay xubnihii ay islahayd way ugu kan yihiin isla markaana dhinaca sharci dejinta iyo sharci yaqaannimada ayay aad u yaqaanaan dalalka adduunka oo ay ka soo grubsatay isla markaana ka soo urursatay haddana dawladda federaalka Soomaaliya iyo xubnaha ka agdhow arinta dacwadda waxay warfadhi media u xaqiijiyeen in niyadda iyo diyaargarowga Soomaaliyeedba uu sareeyo isla markaana waxay dalbanayaan taageero la xadle in dalka la isla dul taago toddobaadkan ayaa la doonayaa inay dadka Soomaaliyeed ee baraha bulshada isticmaala kuwa ololeeya dhamaantoodba inay dhigaan qoriga dabka leh ee ay kula wareegayaan arrimaha gudaha ee dalka Soomaaliya isla markaana ay u wareejiyaan dhicinta badda iyo in loo ololeeyo in shacabka Soomaaliyeed ay isdul taagaan dawladnimada iyo waliba dabcan inay isdul taagaan dacwaddaasi inay Soomaaliya ku guuleysato dhanka kalena warwareynta ay warfadhi media heshay ayaa ilaa hadeerta aan cadayn loo helin waraaqo iyo warbixino maalmihii ugu dambeeyay la wareejinayay kuwaas oo la sheegay in dawladda dalka Turkiga ay doonayso inay dhexdhexaadiso dalalka Kenya iyo Soomaaliya kuna dhexdhexaadiso inay dib u dhigaan arintaasi warfadhi media oo gadeer iyo mid gacanba u fuushay inay isku daydo in intiisa noocaas uu jiro isla markaana bandhig uu ka yimid dhinaca Ankara iyo in kaleba aysan xaqiiqdaasi aysan ilaa hadeertana soo gaarin dhammaan saraakiisha dawladda federaalka ee Soomaaliya arintaas wax ka weydiinay daciyo dareentana kama sidoo kalena waxaa jira in isku dayo kale oo dawladaha qaarkood ururo ay iyaguna ku dalbanayeen in maxkamadda dib loo dhigo hadii kale gacan ka hadal oo imaan karo ay dalbanayeen oo xogyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa helay waraaqo ay soo direen ururo u dhaqdhaqaaqa arrimaha dalka Kenya iyo waliba sidoo kale ururka loo yaqaan ururka bulshada Afrika oo dhawaan ay Kenya iska hor istaagtay in Soomaaliya ku biirto kuwaas oo waraaqo ay direen ay ku qoreen in hadii Kenya ay badda weydo ay gacan ka hadal la imaan karto haddaba suurtagalnimada inay Kenya gacan ka hadal iyo waliba in ay shaqaynta dhinaca arrimaha gudaha gaar ahaan gobolka Jubaland ay sii wado waxa weeye mid biyo kama dhibcaan taasoo dhammaan ay khubarooyinka Kenya iyo kuwa Soomaalidu labadaba ay isku raacsan yihiin inay Kenya si muujido doonto isla markaana faragelinteeda ay si laba jibaari doonto isku day doonto arrinta in xog ka dhigto hadii cadaalad wax lagu waayo taasi waxa ay diyaar garowgeeda ay mudan yihiin markaasi in xuduudda Kenya la wadaago in la adkeeyo isla markaana ciidamada qalabka sida iyo sidoo kale in wada shaqayn lala yeesho dhammaan cidda ku lug leh ma horaan tahay ugu dambeyntii maalmo aad u muhiim ayaa ku soo aadan shacabka iyo dawladda Soomaaliyeed si waliba taariikhda badda iyo dhulka ee dalka Soomaaliya waana arrimo aad ay ugu fiican tahay in loo tooghayo si weyn loola socdo looguna diyaar garoobo sidoo kalena taageerada ducada iyo waliba sidoo kale isgarab taagga dalka iyo in aan taaka kamid ah dalka hooyo iyo waliba biyihiisa aan la qaadan waa waajibaad wadareed wada saaran qof kasta oo Soomaali ah kaasoo ka dhidisan in dalkiisa aan maalin walba jeex la goosan qarnigii 18aad dabayaaqadiisii iyo bilowga qarnigii 19aad ayaa dawladihii soo duulay reer galbeedku waxa ay googooyeen dalkii loo jiray Somali Country dalka Somali Country oo ka koobnaa xeebaha Obaq ilaa iyo xeebaha Banaadir isla markaana isku dilaacsanaa ilaa iyo gudaha duleedka magaalada Harar dhanka kalena haystay badda cas dhanka kalena Indian Ocean geeska bari magaalada Boosaaso iyo Calula joogay ayay kala googooyeen ayagoo dadkaasi u ahaa dad reer guuraa oo ay u taliyaan markaasi kaaba qabiilayaal odayaal dhaqameed ah kuwaas oo kala saara kala gura waxay isku qabtaan isla markaana haysta ilbaxnimo kooban oo magaalo oo doonyo uga yimaado magaalooyinka qaarkood duulaankii xoog lahaa ee ku yimaadeen reer galbeedku waxay ku fakareen in dalka Somali Country la kala googooyo ayagoo 5 daraf ka dhigay oo ka dhigay markaasi British Somaliland, French Somaliland, Italy Somaliland, Reserve Area iyo NFD intaas oo dhan markii ay kala googooyeen haddana waxa ay go'aansadeen oo ay gareysteen in dalalka ay
kula walaalaweyn dhinaca diinta masiixiga ay maquun ahaan u siiyaan qayb ahaan dalka ayagoo qayb ka mid ah dalkana sii gooyay Faransiiskuna uu diiday inuu ka kaco ilaa ay gaadhay 77 oo si xoog lagaga kiciyay haddaba tani waa tu kale oo isku day ah oo la doonayay markana markii dhulkii lagu wareejiyay dalalkaasi in badana qayb looga gogo qaybna badda laga siiyo wax diidayana ma laha haddii Kenya laga ogolaado inay baddan qayb goosato in Britolana Ethiopia la yiraahdo bad waqooyi qayb aduguna ku yeelo haddaba Soomaalida ayaa laga rabaa inay isku sii mashquulsanaadaan iyo in ay bal dalkooda wada difaacdaan iyo in kale amaanal